Asalaamu calaykum. Soo dhawaada saaxiibayaal. Ma tahay qof jecel qur-aanka inuu xifdiyo? Inta badan ma xiisaysaa in aad waqtigaaga firaaqada ah ama waqtigaaga qayb ka mid ah in aad qur-aanka aad u akhriso? Ma jeceshahay in moobilkaagii aad ku aragto culimo badan oo caan ah oo aad jeceshahay dhegeysigoodii in hal meel aad iskugu aad ku wada hesho, macnaha aad ka dhegeysato? Ka daranoo intaasi oo dhan, ma jeceshahay adoo akhrinayo qur-aanka oo kitaab ahaan kuu horyaalo in aad haddana dhegeysigiisii aad hesho, weliba ayagoo culimmadii adigu aad rabto aad xiisayso ama aad jeceshahay aad geysanayso? Culimo aanan ahayn Soomaaliya iyo kuwa Soomaaliya intaba, ma jeceshahay in hal application kuu koobaya aad ka dhegeysato? Ka daro digital, ma sii jeceshahay isla application-kaasi adoo ku jira haddana inaad qur-aanka turjuman karto? Waxaan ku hayaa application cajiib ah, aan rajeynayo in aakhirada adduunkaaga wax badan uu kaaga soo kordhiyo. Soo dhawaada saaxiibayaal. Application-kan waxaad ka heli kartaan Google-ka ama Play Store-ka. Application-kan waa kan aniga hoostan ii yaal. Waxaa ku qoran Quran for Androids. Ayaad ku qoraysaa Google-ka ama Play Store-ka. Play Store-ka waa kan. Play Store-ka waa kan anigu qaybtan hoos ii yaalo. Adigana App Store-kaaga ama Play Store-kaaga ku qor Quran for Android, kadibna kala soo deg. Anaga waa ii degan yahay. Si toos ah aan ugu dhufto application-ka. Adigu haddii aad ku dhufato install aad dhahdo, si toos ah wuxuu kugu soo fuli doonaa shaashada sare. Kadibna waxaad ku dhufanaysaa. Kadib markay saan ugu dhufato, application-kani waa application-ka diyaarsan ee ugu fiican ee ku jira App Store-ka. Application aad looga taxadiray, qur-aanka aad dhegeysan karto, aad ku xifdin karto, 30 juzba qur-aanka kariimka waa uu ku jira. Fasiraadii aad ka raacan karto, aad fasiran karto luqadda adiga aad rabto aad ku fasiran karto. Application-kani waa application aad u cajiib ah, wax badanna idinka anfacayo. Tusaale, aan geeyo waa kan juskii koowaad, juskii labaad, aan ku dhufta suuratul alxaaq. Suuratul alxaaq markii aad sidaan ugu dhufato waa riixaysaa, kadibna qaybtan yar ee playda ah aad taabanaysaa. Cajaa'ib. Marka waa ka sidaas kugu duub maxallaha ii sheegay aad u dhegeysanaysaa, weliba adoo akhrinayo oo aad dhegeysanayso culimmada aad markaas rabto. Waxaad ka taabanaysaa qaybtan aad ka taabanaysaa qaybtan aad taabanaysaa culimmada aad rabto, kadibna halkan ay kugu soo wada baxayaan qaybta hadda aniga ay igu qoran tahay Sheekh Minshawi ay igu qoran tahay. Markay sidaan oo kale uu ku yahay, waxaad taabanaysaa qaybtan hoose, qaybtan halkan idinkaga muuqato, qaybtaas taabanaysaa. Anigu hadda waxaa ii saaran sida idin muuqato halkan, hadhowd inaan fiirisaanaan rabaa. Waxaa ii saaran Sheekh Minshawi ii saaran. Waa ka Sheekh Minshawi ii saaran hoostan sida idinkaga muuqato. Meesha Sheekh Minshawi ay ku qoran tahay oo ku dhufanaysaa. Waa kana culimmada aad rabto dhan inta ay ku wada jiraan. Waa kana Cabdibaasida ku jiro, waxaa ku jiro Cabdul Muxsin Al-Qaasima ku jiro, Cabdulcasiis Al-Sahrayni ku jiro. Waxaa ku jiro culimmada ugu codka macaan, waxaanoo dhan culimo waaye waa ku jiraan. Waxaa ku jiro Sheekh Cabdirashiid Sheekh Cali Suufi qaariga weynaa, iyo culimo badan oo kale oo codkooda aad uga wada heli kartaan ku jiro. Waxyaabaha cajiibka ah ee application-kan aad ku arkaysaan waxaa ka mid ah, markii aayadda ama suuradoo dhan haddii aad rabto xayalaad saan u saaran karto, ama aayadda dhan xayalaad aad saaran karto, kadibna qaybtan yar ee khariirada oo kale kugu muuqato aad ku dhufanayso, wuu ku turjumaysaa. Haddii aayad aad rabto, haddaa suurad rabto, kaliya xayalaada saaranaysaa, kadibna wuu ku turjumaya. Waxyaabaha cajiibka leh ay ka mid tahay oo idinka caawinayo waa application-nada
aan ku arkay guud ahaan applicationada aan ku arkay internetka, applicationka ugu fiican ee qur-aanka kariimka ah ee laga daalacan karo, laga baran karo, laga xifdin karo, laga dhegeysan karo, fisraada lagaga baran karo. Waa application aad u cajiib ah, aakhire adduun ku anfacayo. Waxaan doonayaa inaan halkan kusoo gabagabeeyo. Waxaan rajeynayaa inaad applicationkani linkigiisii xataa qaybta descriptionka aad soo dhigo. Haddaa youtube-ka naga daawanaysaan, waxaan idin rajeynayaa inaad subscribe noo soo saartaan oo aad nagu caawisaan. Haddii aad naga daawanaysaan tiktok-gan inaad soo follow gareysaan, aad iyo aad u mahadsantihiin dhammaantiina. Ilaahay waxaa idinkaga baryaa towfiiqdeena inuu ilaahay towfiiq khayr qabto inuu ilaahay nooga dhigo. aad iyo aad kulanti wacan, kulanti dambe oo xiiso leh.